xilli weli deegaan iyo degmooyin ka tirsan gobolada dalka ay ka soconayaan howlgallo lagula dagaalamayo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab si gaarana howlgalladaasi ay kaga socdaan deegaano ka tirsan gobolka hiiraan ayaa waxaa jirta in madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle yuusuf hagar axmed dabargeed uu sheegay in xilligan loo baahan yahay in shacabka soomaaliyeed ay u diyaargaroobaan howlgalka ka dhanka al-shabaab kaasi oo iska kaashanayaan ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka ee xoreynta deegaanada maamulkaasi hiirshabeelle. Sidoo kale madaxweyne ku-xigeenka maamulka hiirshabeelle ayaa tibaaxay in howlgalkan ka soconaya deegaano ka tirsan gobolada dalka si gaara maamulka hiirshabeelle aysan cid gaar ah gooni u lahayn islamarkaana ay iska kaashanayaan dadka deegaanka, isagoona sidoo kale sheegay in taageero buuxda ay ka helayaan dowladda Soomaaliya. Waxa uu xusay in ciidamada dowladda iyo kuwa dadka deegaanka ee ka dagaalamaya gobolka Hiiraan ay tahay ujeedkooda sidii ay isaga saari lahaayeen al-shabaab islamarkaana beel gooni ah xilligan aysan qayb ka ahayn dagaalka lagula jiro al-shabaab ay ka soconaya guud ahaan gobolka Hiiraan. Waxa uu tibaaxay in xilligan loo baahan yahay in markaa diyaargarow xoogan loo galo sidii markaasi qayb looga noqon lahaa ciidamada dib u xoreynta iyo kuwa dowladda Soomaaliya kuwaasi oo al-shabaab kula dagaalamaya deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan. guusha aad maqlaysiin oo reer Hiiraana diriray shabaab ka adkaaday xawaalada shabaab ka adkaaday laleeyahay Soomaalidu waxay tiraahaa weelka ninka soo lisay la og yahay ninka sidoo lagu awaaliyo leeyahay u fiirsadaya weelka ninka soo lisay la og yahay ninka sidoo lagu awaaliyo reeraan waa dadaaleen qabiilka xawaalu waa dadaalay kaalintoodii waa buuxiyeen laakiin fiiri haddaan horta jarajarada lagu saarin kor uma fuuli kartid moogtahay awalna aajiisayd meeshaan dagaalkan waa dagaal Soomaaliyeed dawladda Soomaaliyeedana hogaaminaysa hal maalin dagaalada dhacay oo arkayseen hal maalin waxa cadawga lagu riday xawaale dal iyo dibad soo u joogo intuu leeyahay wuxuu haystaa hadii la isku daro ma dhama dawladda bixinaysa ciidamada qabiilka gol taagnaay hor taagnaay eriya dhul kala shaqeynayaan ciidamada dawladda ahayn. dhanka kale ciidamada Jabuuti ee ku sugan degmada Jalalaqsi ee gobolka Hiiraan isla markaana uu horkacayo taliyaha ciidanka Jabuuti ee Jalalaqsi Kornal Maxamed Cumar Casoowe iyo ciidamada dib u xoreynta deegaanka ayaa markaasi howlgal wada jira ay ka fuliyeen aaga deegaanka Ceel Baraf. howlgalkan waxaa qayb ka ahaa oo ku jiray ciidamadana ku dhiirigelinayay xildhibaan Cabdilmaalik oo ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya ee ka soo jeeda gobolka Hiiraan isagoona ugu baaqay in ciidamada dowladdu ay howlgalkooda halkaa ka sii wadaan ilaa intii al-shabaab laga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolada dalka. si kastaba ahaatee maalmihii ugu dambeeyay waxaa sii kordhaya howlgallada ka dhanka al-shabaab ee ka soconaya deegaano ka tirsan gobolada dalka haba ugu badnaaday deegaanada maamulka Hiirshabeelle kuwaasi oo xilliganba ka soconaya dagaal u dhaxeeya ciidamada dowladda iyo dadka deegaanka oo isku dhinaca iyo dagaalamayaal ka tirsan al-shabaab. bishaaro shirkadda isgaarsiinta Somtel waxay ugu bishaareynaysaa macaamiisheeda sharafta leh inay u soo kordhisay xirmooyinka adeega Dhamays Plus. waa xirmooyin mobile internet unlimited oo aad u qiimo jaban kuwaas oo shirkaddu ay ugu talagashay macaamiisha shirkadda isgaarsiinta Somtel. macaamiil ku shuba $5 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo 7 ah. sidoo kale macaamiil ku shuba $15 oo hel data internet iyo ku hadal aan ka dhamaanaynin muddo bil ah. macaamiil ku dooro xirmooyinka adeega Dhamays Plus xawaare sare oo aan xaddi lahayn. macaamiil uga shubo xirmooyinka adeega Dhamays Plus adeega idahab code numberka xidig 114 gees adeega idahab reseller code numberka xidig 304 gees. ugu dambeyntii waxaad bedelan kartaa airtime-ka kuugu jira adigoo garaacaya code numberka xidig 204 gees. macaamiil xirmooyinka adeega Dhamays Plus nafsadaada ku soor.